قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام بن عبد الله الدستوائي عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ بن جبل ردف على الرحل قال يا معاذ حديث أنس نصوم الري أمام معاذ رواية كمية أبو سعل يا شيخ إن لسكو حجيانا وراكسين لكن وحاد مدى مسلم والله واحد كاردقاي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديف مد فنقشن أويا على الرحل قاديد كدوشيسة قال النبي وحيدي يا معاذ معاذ وبوري قال لبيك يا رسول الله وسعديك نبي الله كأجيبي كوني يالي وكتاغيري واحد يقدوني سبع قال وحيدي يا معاذ مركلي قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد أظن مجر يشهد قرية أن لا إله إلا الله الله حق لو عابد إنه سنجرنا الله كأهي وأن محمدا رسولك لما هدينا عبده رسول أدونك إلهي أوياي محمد بمعنى محمود أيو كدغان ياهي عبده ورسوله قبل ديره لها أبو طالب وحكي من وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد قبل دالي أوليه يا أبو طالب أيها وحكي النبي مقعيسو عرابها يا وكشقينا يحوري وشق له من اسمه ليجله إلهي مقعيسي نبي محمد مقع لو قدم بليب فذو العرش محمود وهذا محمد بوري الله عرش إسكاله ومحمود لما هذي بوري وهذا محمد مركب محمد وحوي ونبي لما هذي ونقول ما هذي عبده أدونك إله إنه يهي قري ورسولك رب الدري إلا هدو جرو حرمه الله على النار إلهي با ناتك حرمه أدون مجرى واللي متشهاتينك ولما يستنها إلا هدو جرو حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس النبي الله ضدك ما أشيغر بشارة يا خير كم فيستبشروا هب بشارة يستنوا هد ذاليني هم رقامين قال وحوري إذا هديت سيدا يشي يتكلوا شهاتين كي تلصارنا يوانا قابين إلى أعماشي واجبات كيف كقاصرها يعني كده فأخبر بها كلمة بشارة بوشيغ معاذ عند موت مركو لمن يتأثما دنبك عر يدنبك عبس بوشيغ حديث البخاري باللوري مسلم حديث كان صوم الربع فقيات بدن با كجرا فقيات كجرا وبدنه لكن خلاصته وحاود مهمسن الإمام النووي فوائد وشيغي يا أقيم بدن طيب وحي مركا وديرنا وين قدرنا إن شاء الله تعالى فإذا كبدا كجرت وحاكمدا حديث كورا أبو هريرة وحاكمدا إن عالمك ودح فريستا حرتيسي iyo raciyadiisa oo marka uu xaq iyo wanaag u sheego maxay leeyahay suubano iyagu dhex fadhigay markuu dan yeeshay inuu ka dhex kacay kadibna markay waayeen way qoonsadeen nabigu ayaga doono raadiyay marka in ninka mas'uulka iyo ninka caalimka iyo ninka xilka hayaba umada dhex joogo oo wixii markaas dantooda diineed iyo mid aakhiraba uu kala taliyo oo dhex jooga laga qaato ay fadli badan tahay waxa kale laga qaataa markaad damacdo inaad jamaaco iyo dad bulsho aad sheegto oo gobjoog ahaa in aad ku gaabsato dad wada sheegi karin hal doorka iyo inta muuqata acyaanta iyo wajahada dadka baa la magacaaba meel boqol iskugu yimaadeen oo maqaawir iyo maxas ba iskugu timid iyo culimo iyo dheer garad hada muxuu ahaayay maangaabka tirin ku bilowda hal galna ka tagto awsha dagaal bay noqonaysaa awsha ayada way foolxumay noqonaysaa waxa kale oo ku jira oo laga qaataa ما صحابته waxay ku sugnaaneen oo dadaalkii dheeraadka ah ay nabiga jeclaayeen iyo xuquuqda nabi maxamed iyo aadaabtiisii wuxuu mudnaasiday ugu dadaalahayeen iyo siday ugu cabsanayeen suubanaha in cadow badan maadaama uu leeyahay uu dhib la kulmo hawshaas oo dhan marka daryeelkii iyo dadaalkii dheeraadka ay saxaabadu la qaabileen una hayeen suubanaha iyo xadiidka ku cad waxa kale oo ku cad mas'ala muhiim ay shaafiicidu ka hadlaan kutubtoodana ku cad fiqiyaadka oo yiraahdaan walahu akhdhu ma ya'lamu ridaa ninku wuxuu leeyahay in uu qaato waxaad ogtahay walaalka inuu raali ka yahay ama uusan dib u arkaynin waxaana loo jeedaa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo abu hurayra labaduba waxay galeen beer xidhan oo albaab aan lahayn nabigu hadduu doono albaab asagoo ha laga furaa abu hurayra u daran abu hurayra beer iyo hanti ruux buu galay markuu meelu ka gala waayana xataa wuu huluushay oo sidii dawacadii meel intuu ka xulushay buu dhex galay idan
nabi maxamedna ma dhihin maxaad u soo gashay milki iyo hanti aadan lahayn maxaad ugu tasarufaysaa beeraha islaamka maxaa ku soo geliyey maxaa kaa dhigay seere kaboodka iyo xadgudubka aad u samaynaysaa midna lama dhihin nabiguna waa qire asaguna waa sameeyey maxaa yeelay saxaabiga ansaariga ay beerta iska lahaa nabi maxamed iyo saxaabi soo gal uusan dhib u arkaynin uusan ka xanuunsayn raallina ka yahay ayaa curfi iyo caada iska ah waxa markaad ogtahay walaalka inuusan dhibsanaynin gacal cun baa la yidhaahdaa waxba idan ooma baahno kitaab uu leeyahay meeshan yaallo oo uu saw ka daalay inaad qaadood yar mudaalacayso dhib ma laha yaa kuu fasaxay waxaa weeyaan xoogow qatuucnimo wey yaa kuu fasaxay yaa ku siiyey iyo howlahaas ayib waxa marka aad loo qiimeeyey ee weyn ee idanka u baahan waa gooni laakiin waxyaabaha noocan oo kale ah inuusan idan u baahnayn ayaa ku cad weliba markaa haddee martaan adab almufrad baad ogaan doontaan in salafku ay wax wada cunku ka dhexeeyo oo xataa raashinka iyo digsiyaha la kala qaadanhayo oo marti iyo mudanaba dadku aysan ay mid ahaayeen allahumma uun xaasaska iyo wixii un kale khaasaba mooye waxaa kaloo ku jira xadiidka ku sugan asaguna in markaad fariin diraysa mararka qaarkood si aad u xoojiso hadalka calaamad iyo qaraa'in la isticmaalo nin baad fariin dirto marka waxaa tiri gaadhsii reebel aan fariintaa gaadhsii hadday kaa shakiyaan ama dhici kartaan ushayda waata tusbaxayga waaka kitaabkayga waaka kabahayga koofiyadayda waata yani calaamad lagugu garto abu hureyre waxaa loo dhiibay kabihii baa leeyay marka si lagugu aamino orod waxaa kaloo ku jira alictimaad cala alqaraa'in sayidina cumar markii nabi maxamed weli muusan arag markuu abu hureyre ku yidhi nabi maxamed baa isoo diray bishaaradaa gud buu yidhi kabihiisina waa kuwan muxuu ictimaaday qowlu arraawi ahiqu aaminay maca ictimaadi alqaraa'in taasna marka inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka ku jira haddii iimaanka munjiga ah ee ruuxu naar uu kaga badbaadahayo inuu yahay iimaanka saadiqa ee yaqiinta ah iimaanu lmunaafiqiin waalmuraa'iin inuusan aakhara anfacayn naarna iskaga badbaadaynin baa ku cad xadiidka mustayqinan biha qalbuhu sidqan min qalbihi asaguna marka waa raddun cala almurji'a iyo qolyihii karaamiyada ahaa haddayba hawshaa qabaan hawshaana ma sumin karaamiyadu adduunkan bay ka hadashahay aakhiro isku baabayna nahay waxaa kaloo ku jira faa'iidadii bukhaari u baabaystay baabu man khasa alcilma qawman duuna qowmin lianlaa yafhamuu ayib ama makhaafata an anlaa yafhamu waxaa ku jira in cilmiga khaaska qaybo ka mida culumta islaamka qaybo ka mida culummada khaaska iyo indheergaradka iyo dalabatulcilmiga nubahada iyo lagu gooni yeeli karo oo caamada iyo dadka ah ku khaldamaya fahamka diineed laga ilaaliyo ilaa muddatin mucayana oo wax ka caddaanayo waxaa kaloo ku jira xadiidka oo isaguna bannaanka yaallo oo ictibaaru lma'aalaat xadiidka dambe anas baynu u jeednaa alictibaar bima'aalaati alaqwaali waalafcaal baa ku jira nawowina ma uusan tilmaamin qadiyadda ayada laakiin bannaankay taallaa maxaa yeelay ma'aalkii dambe qurtubi baa ka hadla asagoo hawsha baraarujiyey ma'aalkii bishaaraduu nabigu fiiriyey cumarna fiiriyey xadiidka mucaadid nabigaa eegiyo daa iyo aysan tala saaranin midka abi hureyre de cumar baa fiiriyo wuxuu ka baqay haddii bishaarada loo sheego inay gaasiraan oo gaabiyaan oo markaasi ay si fiican u shaqayn waayaan waxaa kaloo ku jira ihtimaamkii cumar uu lahaa iyo dheeraadkii uu lahaa ummadda uu kula dadaalahaya inay meesha u wanaagsan camalka ka gaarhaan darajada u wanaagsan ee jannana ay helaan ruuxii asagu shahaadateynka la yimaada shuruuddeedana oofsada asagu janno inuu geli waa musallab laakiin cumar ummadda wuxuu la rabaa inay darajo sare jannada ka galaan oo shahaadateyinkii iyo camalkii khayrkaa oo dhanba isku darsadaan oo ay si fiican u baasaan marka danayntii iyo naxariistii ummadda uu hayay iyo wanaaggeedii wanaaggiisii baa meesha ku jira waxaa kaloo loo daliishadaa xadiidka الاعتماد جواز الاعتماد على القرائن وإن كان الرجل لا يتهم جواز الاعتماد على القرائن والعلامات قرطبة سونا فإذا كدري إذن قرائنتي علاماتك أيا لاعتبارنا يا أمر بدن العسكنا يا هدي لدونينك خبرك شيغيبا يوسف متهم نقنين وإذا دا وحي ودريشنا حديثك وحا كجر فيه جواز تخصيص العموم بالمصلحة المعتبرة شرعا عموم كإن لخصيصاء بنان بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار وسيده قرطبي كعبري أبو العباس طيب حديثك هو عام نين والبها وشا لي ماده إن لو قب بشاري أو لو شيغو أيو عام كؤها
idan cumar wuxuu go'aansaday lana qumaata nabiguna ku raacay in saxaabada qaybo ka mid a xadiidka ay bishaarada ay ogaadaan ummadda kalena aan la gaadhsiinin maxaa yeele lianlaa yatakiluu wayuqasiruu fi lacmaal marka waxaa ku jiro takhsiisu alcumuumi bilmaslaxa almashhuudi laha bilictibaar waxaa kaloo ku jira masale iyaduna aad u muhiim ah oo lagu dagaalamo ijtihaadka nebi maxamed ah habeen hore waa inagii soo maray xadiidkii mucaad markaynu maraynay ee hore in cumar qadiyadda nabigu uu mar kala hadlay oo nebi maxamed oo anta afdalu minii ra'yane laakiin sidana ila quman midkan abu hurayra waynu aragnaa nabigu isagu go'aansaday in la gudbiyo bashaarada ummaddana loo sheego iyo cumar hawshaasi tala ka keena nabiguna uu ku waafaqay marka axaadiidiisu way iska hor imanaysaabaa kuu muuqanaya kii horenu soo maray xadiidka abu hurayra hadda midkan mucaad ibnu jabal ee anas uu warinhayo idan nabigu marna cumar buu ku waafaqahayaa in aan ummaddii la dhex dhigin bishaaradan saysan ugu aafoobin ama aysan khaab khaldan aysan u isticmaal marna wuxuu leeyahay ha la faafiyo oo ha la gaadhsiiyo waxay leeyihin culammadu waa min baabi waxaa hawsha ka hadlay nawina uu ka soo dheeganayaa alimaam ibnu salaax fii kitaabi siyaanatu muslim safxada 186 si fiican buu uga hadlay waa min baabi tagayur اlijtihaad waa min qabiili tagayur اlijtihaad ijtihaadkii baa isbedelay nabigu mar buu maslaxa u arkahayay bishaaradan ummadda in loo sheego la dhex dhigo oon cilmiga lagu gooni yeelin bacd almuslimiin oo labada gaadhsiiyo haddana bacda waqtin aw bacda muddatin waxaa la qumanaatay nashra albishaara bishaarada in la nashiro ummadda la dhex dhigo waa min baab tagayuri ijtihaad الrasuul sal ly slam ayuu markaasi xadiidku noqonaya wax khilaafa iyo wax tacaaruda midna ma jiro nabigu marna waxaa la qumanaatay in muslimiintu hadda ay wax fahmeen oo aysan tala saaraynin bishaarada oo haddii loo sheego way ku farxi khayrkii gaabinna mahayaan oo way sii karaar qaadan oo way dadaali marna cumar dareenka uu muujiyey baa la qumanaaday marka waa min baabi tagayur اlijtihaad weeye ma min baabi tacaarudi watanaaqud marka xadiid walba xaalad iyo waqti baynu dhigaynaa kadib nabigu wuxuu tilmaamay baxdi dheer oo ku saabsan nabigu ijtihaad ma leeyahay baxdiga aqwaasha ku jiray buu khulaasiyey marka wuxuu yihi kutub usuul bayna tafsiilkeeda ku jirtaa masalada marka ijtihaadu nabi sal ly slam marka la soo gabagabeeyo 5 farac bay leedahay farac baa mukhtalafa afarna waa muttafaq nabigu qaab buu isu hoosgeliyey xataa qaadiciya laftigiisu qaab buu isku hoosgeliyey aan caddayn masaladu 5 farac bay leedahay 4 ka mida waa muttafaq walaa khilaafa fiiha midna waa mukhtalaf فرع كوباد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام علماء وعسكوت وفاقين أنه لا يجوز الاجتهاد فيما فيه نص نبي محمد كو اجتهاده وكو دلاله رادي حكم كمسألة بالاستنباط والاجتهاد وما بنانه فيما فيه نص من الله سبحانه وتعالى هذا هو فرع متفقة لا يجوز للنبي ولا لغيره الاجتهاد فيما فيه نص فرع اللباد وحيث وافقا علماء نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاوبنا الاجتهاد في أمور الحرب وأمور الدنيا أرمها الدقالك كارتوينك خططك قابك وحلو أقاسمي هؤلاء النبي وكو اجتهادي كرا اجتهادك هو بدل الوسع من حيث اللغة والطاقة أما اجتهادك الشرعي وحلو يقنا بدل الوسع في نيل حكم شرعي بطريق الاستنباط أو شاملة تصبرتين بلا طيب بدل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بيقدران بطريق الاستنباط إن الدلاشو أودك وقدم بيساء قونات أما كران كذا أقونات بحسه كونت بحسه إن الحكم شرعي أهشه وأقاته بطريق الاستنباط أما حكم شرعي عملي هذا نبي وحاوبنا أنا إنه كجتهد كدداله في أمور الحرب والقتال والأمور الدنيوية تنوى مسألة إجماعية وكي يوم بدر النبي كنت عيدا كحيين مالدجي منذر الحباب بكون نبي الله ما وحي با وسمعا وطاعة مسوى كارتا دقالية تاتكية طبعي كاتهي مركز النبي وحي النبي الله ما منذر وحي قطعي تاتكا دقالية طبعي قطعي حيالة دقال بي قطعي نبي وحي النبي ماشي المنزل ما ينقصوا كعيو هل كاين الدجي يوم الخندق markii muslimiinta la hareereeyay ee la iskugu yimid ee carab iyo quraysh iyo qadfaaniyiin iyo najdiin iyo yahuud iskaashatay ee la iskugu tagay nabi waxa la qumanatay
نجديين يا قطفانين بحكوري وحان إنسينها يا تمرت المدينة نص كيد بل إنسان كسو قودي إذن كنت قالك كبحا إسكو كاي يداي أنا يطلقي أنا كلبحني إذن كنت إسكتها محل ماشي أقول لمن يسا سعد بن معاذ يا سعد بن عبادة هوشي نبي وشيء وكلت الشر رواية الزهري بعد يسوي النبي الله ما وحي با هدو وحي هي فسمعا وطاعة هدو اجتهاد يا الرأي هينا نبي الله وحي رأي كان معها النبي وحي دلال بيجاء هي حين نبي الله هدان ساي الله وبنا لدليسن بيداده أنه الجاهليين والمشركين أي عرب نقص مرتين إنه حبت مرأة يسوي قد باطنا كقادن إن صوم مرتيان ونصور رأيه أما إن يبسدان مويين أنه مشركين لباد الجرين أنه مسلمين وأنصار حقنا مهاجرين هيسنا إلهنا كحر النبي نحجوا لمن كان نباد ما هي سكاي الدابي دادين نبي حوري دينك يقصحن النبي يجوز له الاجتهاد في أمور الحرب والأمور الدنيوية وكي النبي يقول تمرت إلا بعرمية أما اللي أوردبه إيه إلا إسكدا يسكن مدبا وأركع هاوشانا مركا وكي خلط وكسر بحي النبي يقول واقد دنبه هاوش إن الدنيا ذا إذنك وطا أولها إذنك يغفي عن وحي الدنيا قضبك صدحات وحي علمك إجماعين أنه يجوز له الاجتهاد في أحكام القضاء باب القضاء مكا لما رأى النبي يقول اجتهاد أبنان إجماعا يجوز له الاجتهاد في الأقضية طيب إنما أنا أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل فيه علي حديثكم مسلم في الصحيح البخاري ومسلم ونقارد إن شاء الله تعالى نبي حلو حديثك حكمها يا بالرأي إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل فيه علي رأيي يعني هو حكم شهود نبي اعتبار أو بينات كل دقيسن أو دارتو دقيسن أو قرائن باعتماد مركا يجوز له الاجتهاد في القضايا والأقضية ومسألة إجماعية فرع أفراد متفقة وحاوية نبي هدو اجتهاد أبنانا هذا أو خلدمه لا يقر له على خطأ هذا إجماعي نبي هدو اجتهاد في أمر دنيوي أو هاي قضائي أو حربي هدو كو اجتهاده كدبنا النبي ساكتي لقى في حكم كميشو لها لا يقر له على الخطأ ولو شيء آيات باكسو دقي عفى الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين والله صح هاي تأفرع ومسائل أنمر الله لا يجوز له الاجتهاد فيما فيه النص يجوز له الاجتهاد في أمور الحرب والدنيا يجوز له الاجتهاد في أحكام القضاء والأقضية لا يقر له على خطأ إن أخطأ في اجتهاده أفرتا مسألة ومسائل متفق مرن لهي مسألة خلاف كجرة وحاوي نبي اجتهاد مؤبنانا في الأمور الدينية اجتهاد نبي مؤبنانا وإنت أنا هاي قضنا عن كساب سنين أرين دقالي حربنا عن أهين فيما لا نسى فيه هل يجوز له الاجتهاد في الأمور الدينية الشرعية قولوا حيدا مايا نبي اجتهاد مؤبنانا محايا وحي بكو كافتوما هيا إلهي بقى لقرب تاغن فلا حاجة إلى الاجتهاد وحال لو بدن يا النبي أنه يجوز له الاجتهاد قرآن كانت المامي إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله اجتهاد بدن بو النبي والسميي أو موقده أو دعي يا في أمور الدين مثل خلافه هل يجوز له الاجتهاد في الأمور الدينية الشرعية نعم يا لا بأسلوب تسكوها يا نعم يا لا نما واحد ما برنا بيقول كل اجتهاد في الأمور الدينية الشرعية لأنه يكتفي ويستغني بالوحي نمنا وأبنا يهيد هذين أدلة بدن بين الدليل شذان طيب وحاكم ذا حديثك أها لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي نبي حكسو حجيي أو كد ذلك أن يكون قارنا واجد نمر وحاول عدات إن قران كان لقى في عنية والتمتع في عنية وحونا يدي هديها وش يديب لي يقصوا علين لها وحنكسوا حجي لها تمتع يكمسوا حجيين قران الدليل يدريشان بكمة أنقصتهم مرن كتاجية وحاك كوهري هدي أن أقلان إن النبي صلى الله عليه وسلم واجتهادك في الأمور الدينية الشرعية اجتهادك ثم مصيبة في كل الأحوال مسوي قفك راسوبانه
نبي حول النبي ما فكره. وكذلك القاضي عياض وكذلك أبدا النبي يجوز له الاجتهاد ولا يخطأ أصلا. هل كاسي وإذا دبرا بامري أشاعره متكلمين ويكون نفتحين، لكن سيدا صواب كان النبي هو اجتهادي كرا في الأمور الدينية وقد يخطأ. لكن حكا قد وياي ومجتهدين تكلك قد النبي هدوق فوق الساكتين أما السيريو ولو براروجين خطأ أصلا النبي يقول له الدين معي ولا براروجين لا يقر له على خطأ. أما بقية المجتهدين ويخلدمها يا مركز الله يبقى خلق إنه يكون لنا يجوا من سنة وقباء وحكوا براروجين حتى أي سنة أما حتى هدي لو براروجي أي كن نقوم وياه. مسألة هذا ما خلاف كاس أي كجرة هل كان مسألة ومسألة خلاف كجرة أفرتك له ومسائل اتفاقية إجماعية ومرة بدنا كمس يجرو. waxaa igu dambeeyo oo qadiyada xadiidkan hadda igu dambeeyay Mucaad ibn Jabal ama Anas ku jira ninkii shayda an laa ilaaha illa ana muhammadur rasuulullah axaadiis hore meeshaynu marino baynu marinaynaa ama waxaad ku xambaari ruuxi muslimka ee tawxiidka la yimid ee wax macsiya ku dhicin baa laga hadlaya maxaa yeelay ruuxi tawxiidsada shahaata ilaahina aan caasiin ala istiqaama ku dhinta inuu janno galayo naarna aan sayarkeeda la marin ayadu muran ma laha. هذه لكن عصادة الحديث هو عاممها هي حديث مرك هو عام مخصوص أما هو عام أريد به الخصوص أما هو وعد أن الله جمعنا إنه هي وعيد كيسك عليه وحن لنا هاي ووعيد وعدك وحتى ليس يبوها سدي ليس مركز كبب بعد دم بكلا والنار كم وضته أتكبد بعده زنائي باني خياني تغنيمي حقدروا دي بالغضة دي موانع دي كلا إن جنة كان من عيني سيد دخولك أولي أتتكبد بعده مركا بعض أضوء حافظ سلامة أو نبض قبل جنة جلساتي كلا وحد جوكتا وتحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه.